بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii qubaraha qodobada caawa barnaamijkan aan idinku haynana waxa kamid ah dagaalyahanada iska cabita Gaza oo weerar gantaalaha ku qaaday caawa koonfurta Israa'iil militariga Israa'iil oo war ka soo saaray weerarkan Netanyahu oo kulan xasaasi ah oo ay albaabadu u xiran yihiin la leh golihiisa wasiirada waxaa laga wada hadlayaa arrimaha xabad joojinta iyo jawaabta Xamaas ka timid gaar ahaan qodobada Falastiiniyiintu ay ku dhagan yihiin waxaa soo baxday caawa xog xasaasi ah oo la xiriirta dhowr saldhig oo ciidamada Israa'iil ay leeyihiin oo lagu garaacay Iiraan gantaaladii ay soo tuureysay intii uu socday dagaalkii 12 maalmood u dhaxeeya labada dhinac Turkiga oo laga ugaarsanayo mas'uuliyiinta gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga mucaaradka ee CHP kuwaasi oo loo haysto eedeymo musuqmaasuqa maanta oo kaliya 3 duq magaalo iyo degmo ayaa xabsiga loo taxaabay Trump oo markii uu ka carooday Putin hadda bilaabay in Ukraine uu ku hubeeyo nidaamka difaaca gantaalaha sheekada ugu dambeysay barnaamijka idinku hayaana waxay ku aadan tahay waa cilada social media waxaan idin haynaa caawa sheekada ku saabsan haweeney dacwad ka dhana ninkeeda oo ku aadan baraha bulshada u gudbisay booliiska waayaabay maxaa la isku hayaa sidaas wax u dhaceen sheekadan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii war ah ee soo dhacay intaaynu hawada ku jirno ayaan idinku soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka iyadoo qiimihiisa laga dhigay 150 pound oo kaliya halkii uu ka ahaa markii hore 240 pound waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rugcada ah kana soo shaqaynayay hawlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta wixii faahfaahin ah oo inta dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shaashada kaaga muuqda hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxaa ka mid ah quraanka kariimka higaada axaadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culumta shareecada waxaadna helaysaa 24 saacba 5 maalmood oo ka mid ah isbuuca dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado faahfaahin dheeriya la xiriir WhatsAppka +252 633 145 153 soo dhawaada mar kale daawadaya si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa dalka Turkiga halkaasi oo ugaarsi lagu hayo mas'uuliyiinta iyo waliba xubnaha madaxda ka ah degmooyinka iyo gobolada wadankaasi ee ka tirsan xisbiga CHP oo ah xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalka Turkiga haddaba sida la socotaan horey waxa loo xiray Ikram İmamoğlu oo ahaa duqii magaalada Istanbul isla markaasna la filayay xisbiga CHP inuu matalo doorashada lagu wada inay dhacdo sanadka 2028 laakiin xaalku waa isbedelay oo xabsi ayuu ku jiraa imika İmamoğlu sidaas oo kaliya inta oo kaliya shakada kuma harine mas'uuliyiin kale ayaa xabsiga loo dhaadhicay haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee arrimahani uu ka soo tabaniyay telefishinka la yiraahdo NBT ee laga leeyahay dalka Turkiga mas'uuliyiinta wadanka Turkiga ayaa galabta xabsiga dhigay 3 duq magaalo oo ka tirsan xisbiga CHP sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska dacwad oogaha guud ee magaalada Istanbul xiritaankan ayaa ahaa kii ugu dambeeyay ee taxana ah dacwooyin dhanka qaanuunka oo socday bilooyin kuwaasi oo hadda ku baahay meelo ka baxsan magaalada Istanbul duqeyda magaalooyinka Adana iyo Adiyaman oo ah 2 magaalo oo waaweyn oo ku yaala koonfurta dalka Turkiga ayaa lagu xiray eedeymo la xiriira baad waxaana lala xiray ugu yaraan 8 qof oo kale telefishinka NTV ayaa sidoo kale soo wariyay in duqa magaalada Antalya iyo ku-xigeenka duqa degmada Büyük Çekmece oo ah degmo ka tirsan Istanbul
iyagana loo xiray isla baaritaano amuurahan la xiriira. tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii ina weydaartay howlgalladan ayaa lagu beegsanayay boqolaal xubnood oo ka tirsan xisbiga CHP oo ay ku jiraan ugu yaraan 11 duq magaalo oo kale. xisbiga mucaaradka ayaa guud ahaan beeniyay eedeymaha isagoo cambaareeyay baaritaan ka socda kuna tilmaamay kuwa siyaasadaysan. sheegashadaasi dowladdu si adag ayay gaashaanka ugu daruurtay. bishii Maarso duqii Istanbul Ikram Imamoglu oo loo arkay inuu yahay tartamaha ugu weyn ee la loolamaya madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan ayaa la xiray isagoo sugaya dacwad musuqmaasuqa taasi oo beeninayo. xarigiisa ayaa sababay mudaharaadyo waaweyn oo wadooyinka la iskugu soo bannaan baxay, waxaana la sheegay inay ahaayeen kuwii ugu ballaarnaa ee dalka ka dhaca muddo 10 sano ah, waxaana uu keenay hoos u dhac weyn oo ku yimid suuqyada maaliyadda ee dalka Turkiga. laakiin dowladda ayaa waxay sheegaysaa in rabshadahaasi ay yihiin kuwo lagu qalqalgelinayo amniga iyo dhaqaalaha dalka, waxaana ay sheegeen inaysan jirin cid ka sarreysa qaanuunka, dacwadna cid kasta lagu soo oogi karo. waa tahay warkaasi wixii ku soo kordha waynu arki doonaa. haatan waxaynu eegaynaa dhanka dagaalka Ukraine. sidaad kula socoteen wararkaygii ugu dambeeyay, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag wuxuu ugu cambaareeyay wasida dalka u dhigay madaxweynaha dalka Turkiga, raali ahaada madaxweynaha waddanka Ruushka, in uu dagaalka doonayo inuu sii wado isla markaasna dad la dilo. hadda waxaa la leeyahay Trump oo ka careysan in Putin uu aqbali waayay soo jeedintiisa ku aadan dagaalka in la soo gabagabeeyo, ayaa hadda marada wuxuu u raxayaa in Ukraine la siiyo nidaamka difaaca gantaalada ee Patriot la yiraahdo. aynu eegno wararka ugu dambeeyay amurahan oo warbaahintu ay wax ka qorayso. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hoosta ka xariiqay baahida degdega ah ee Ukraine u qabto nidaamka difaaca cirka ee Patriot, isagoo sheegay in xaaladda difaaca Kiev ay tahay mid aad u adag iyadoo Ruushka uu sii wado weerarada xooggan. Trump oo la hadlayay dadka wararka fidiya ayaa ammaanay waxqabadka gantaalada Patriot isagoo ku tilmaamay kuwa cajiib ah, wuxuuna sheegay in Ukraine ay u baahan tahay in ay iska difaacdo weerarada xagga cirka. Trump wuxuu xaqiijiyay in telefoonka uu kula hadlay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, waxaana uu ku nuuxnuuxsaday in wadahadalkooda uu ahaa mid wanaagsan, labada hogaamiyeen ay isku raaceen in la xoojiyo awoodda dhanka difaaca cirka ee Kiev. ilo xoogagaal ah ayaa waxay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters in wadahadalladan ay dhiirigelin siinayaan Ukraine, isla markaas la filayo in la bilaabo bixinta gantaalada Patriot. Ukraine waxay wajahaysaa weerar sii kordhaya oo gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyadoo ciidamada cirka ee Ukraine ay sheegeen in ka badan 300 oo diyaaradaha droniska lagu soo weeraray deegaano kala duwan oo kamid ah gobolka oo ay kamid tahay magaalada Kiev ee caasimadda ah. Ukraine waxay si caro leh uga falcelisay iyadoona duqeyn ay ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka la yiraahdo Voronezh ee gudaha dalka Ruushka. Trump ayaa sidoo kale waxa uu la hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Friedrich Merz iyagoo isla soo qaaday arrinta gantaalada, taasi oo muujinaysa isku dabaridid suurtagal ah oo ku aadan in xulafada la sameeyo qaabkii Ukraine loo siin lahaa gantaalo dheeraad ah. goorsii horeysay Mareykanka ayaa hakiyay qayb ka mid ah hubkii la siin lahaa Ukraine, taasi oo walaac ku abuurtay Kiev oo muujisay inay awood u leedahay dhanka difaaca cirka sida hadalka loo yiri. hadalka Trump ayaa waxa uu muujinayaa isbeddel dhanka siyaasadda oo cusub, iyadoo Mareykankuna dib u eegayo taageerada military ee Ukraine, iyadoo Ruushkuna uu sii wado dagaalka xooggan ee imika dhaafay 3 sano. dhinaca kale waxaa la sheegayaa in goordhaweyto magaalada Moscow Ukraine ay ku qaaday weerar xagga cirka. duqa magaaladaasi ayaa waxa uu sheegay in 4 diyaaradaha droniska laga hortagay kuwaasi oo Ukraine ku soo weerartay magaalada Moscow ee caasimadda ah. waa tahay xaaladda marka waxa leeyahay meel adag maraysa. ninkii Putin ahaa iyo Trump isku dhigay yihiin. Putin wuxuu yiri aniga yoolkayga dagaalka ma gaarin, adna waxa rabta dagaalka inaad joojisid. maxaa la isku hayaa marka baa leeyahay qubarada waxay leeyihiin waxa la isku hayaa Putin wuxuu leeyahay la igala hadlo dagaalkan sababaha keenay maxaa u ah xudun ama udub dhaxaad. arrimahaas aan ka wada hadalno leeyahay. Trumpna wuxuu doonayaa in la soo gabagabeeyo dagaalka,
oo iyadoo aan si buuxda gudaha lagu gelin arrimaha qaarkood in la soo gabagabeeyo. taas ayaa keentay markaa Putin inuu ka gows adeego dalabaadka Trump. Trumpna waa ninkaasi asna xanaaq ayuu afka la buuray. haddana wuxuu leeyahay Ukraine waa in la siiyaa nidaamka difaaca gantaalada ee Patriot. xaaladdu ma ka dari doontaa mise way soo hagaagi doontaa? sidoo kale tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine dhawaan uu sheegay in ay diyaar u yihiin inay iibsadaan gantaaladan iyo xitaa inay kireystaan si ay iskaga difaacaan weeraradan xooggan ee Ruushka uu wado. 550 diyaaradaha droonka ayuu hal mar ku soo weeraray maalmo ka hor Ruushka Ukraine. markaas arrintu waxay noqotay qalqal iyo yaab. 550 diyaaradaha droonka maxaa difaacda maxaa si celisa? وهاجد حالة سيء حكوسة كرنا وينو أركضونا وحنا قد بدونا وربحنا كوسابسن حق صباح دي أو شيء جسه قتالة إيران يكون دقيس إسرائيل إن يكون عن دور سلبي أو ميليتري أو مهمة. هذا بحق تنسيد الله وهاي معلومات كان قصارها معي شكلها سوينا صعطة وعكون إذا سوق بيننا وربحنا كلا أو كوسابسن وركب قدام بيا قزة كلن كعاوة الصعدة نتياهو يقول لي يسوي سيرة arrimaha ku aadan wada xaajoodka iyo xoogag iska caabinta Falastiiniinta oo gantaalo iyaguna ku garaacay koonfurta Israa'iil. intaan idin soo gudbin wararkaasi ayna ku hakanno qadar xayisiina. Simodi oo ah suuqa ugu weyn ee dahabka ee bariga Afrika waxa uu macaamiishiisa ugu talagalay fursad cajiib ah oo mar la arag ah. haddii aad dahab ka soo iibsato Simodi iyo haddii aad iska iibinayso labadaba, Simodi waxay ku siinaysaa fursad qaali ah oo aad ku guulaysan karto dahab kale, waana fursad soconaysa bishan iyo bisha soo socota. cajiib! Simodi ka iibso dahab ama iska iibi oo hel dahab kale oo aad ku guulaysanayso fursaddan. guulaystayaashu waxay noqon doonaan 6 qof ee ugu horeeya, waxaana uu xarumo ku leeyahay Dubai iyo Hargeysa. faahfaahin dheeriya waxa aad kala xiriirtaa WhatsApp-yada Hargeysa iyo Dubai ee aad ku aragto shaashadda. dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha ee danaynaya barashada culuumta shareecada Islaamka qaybaheeda kala duwan, waxaa loogu bishaaraynayaa in macadka Ibnu Cabbaas uu soo kordhiyey qayb cusub oo online ah. waxaana ka mid ah culuumta shareecada oo ilaa 6 qaybooda, barashada af Soomaaliga iyo Carabiga, Quraanka Kariimka, dadka waaweyn iyo carruurtaba, kasixidda carabka ruuxa dhigtay hadda ka hor, higaada Carabiga oo ilmaha si fiican loo fahamsiin doono insha Allah, iyo culuumta kale ee Quraanka. wixii faahfaahin oo dheeriya waxaad kala xiriirtaa nambarada shaashadda kaaga muuqda. soo dhawaada markale daawadayaal, wali waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagaag xagga Gaza aynu ku horumarno halkaasi oo lagu soo waramayo xoogagga iska caabinta Falastiiniinta caawa gantaal inay ku soo garaaceen koonfurta Israa'iil. haddaba militariga Israa'iil ayaa war ay soo saareen waxa ay sheegeen in gantaaladan laga soo tuuray Khan Yunis oo ku taal koonfurta marayka Gaza. gaar ahaan waxaa la sheegayaa in tani ay ahayd mid aad loola yaabay sababtoo ah Khan Yunis waa meesha hadda dagaalka culus uu ka socdo. ciidanka Israa'iil la sheegayo in ay ka wadaan hawlgallo aad u culus. waxaa la sheegay gantaalada inay ku sii jeedeen deegaan kaliirada Kisufim oo ah deegaan ku dhow marayka Gaza. militariga Israa'iil waxay sheegeen 2 gantaal oo la soo riday inay ka hortageen, waxaana laga maqlay seeriga digniinta ka bixiya deegaanada ku taadsan marayka Gaza gaar ahaan aaga Kisufim. dadku waa la yaaban yahay. waxaa leeyahay Khan Yunis oo ma ahan meesha hadda hawlgalku ka socdo. dhowr toddobaad ayaa dagaal ka socda. inta aynu barnaamijka ku jireen hadda warda dagaal soo dhacay, telefishinka Al Jazeera wuxuu ka soo xigtay Saraaya Al-Qudus garabka militari ururka Jihaadul Islaami in hoobiyaal ay ku garaaceen caawa ciidamo Israa'iiliin ah iyo gaadiidkoodii oo ku sugnaa deegaanka la yiraahdo Abasan Al-Kabira waa bariga Khan Yunis. halkaasi oo sidoo kale la sheegay in dagaallo culus ay ka socdaan. xagga siyaasadda aynu eegno, waxaa la sheegayaa caawa kulan albaabadu ay xiran yihiin oo weliba ah mid xasaasiya in Netanyahu uu la leeyahay xubnaha golaha wasiirada. waxaa laga wada hadlayaa arrimaha ugu dambeeya ee jawaabta Xamaas ka timid ee la xiriirta heshiiska xabad joojinta.
warbaahinta Israa'iil ayaa ku soo waramaysa in kulanka si horodhac la iskugu afgartay in wafdi ka socda Israa'iil ay caawa ka ambabaxaan Israa'iil kuwaasi oo tegi doona magaalada Doha ee dalka Qatar si halkaasi looga sii amba qaado wadahadalada lagu doonayo dagaalka in lagu soo gabagabeeyo isla markaasna laga wada hadlayo qodobada qaar. kulankan ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo dhinaca kalena magaalada Qaahira wadahadalo ay ku yeelanayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Masar iyo xubnaha ka tirsan hogaamiyaasha Xamaas iyo ururka Jihaadul Islaami. waxaa laga wada hadlayaa bacdiiri arrimaha la xiriira xabad joojinta. war sidoo kale hadda soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in dawladaha Masar iyo Qatar dhexdhexaadiyaashooda ay u gudbiyeen Washington dalabaadka Xamaas ee ku aadan dagaalkan in la joojiyo marka lagu dhawaaqo xabad joojinta. macnaheeduna ay tahay in Mareykanku damaanad buuxda uu qaado dagaalka Israa'iil inaysan bilaabi doonin haddii xabad joojintu ay dhacdo oo 60 maalmood markaasi la gaaro. marka waxay leeyihiin Xamaas waxay u soo gudbisay wadamada Qatar iyo Masar adinka ayaa mas'uul ka ah Mareykanka ka keena caddayn ah dagaalkan inuusan dib u bilaaban doonin. labadii wadan ee Masaarida iyo Qatar hadda qoorta waxaa loo suray warkaas ka keena Mareykanka damaanad qaad anaga oo aan golnahay heshiiska iyo waxaad wadaan iyo waxa soo jeediseen saddexdaas qodob in wax laga bedelo anaga doonayna. waa qodobka koowaad gargaarka in laga saaro hay-adan Mareykanka iyo Israa'iil ay wataan oo 550 qof ay ku dhimatay tani markii hawshaas ay bilowday. gargaarka marka in lagu wareejiyo hay'adihii qaramada midoobay iyo sidii hore loo qaybin jiray. qodobka labaadna ciidanka Israa'iil inay ka baxaan dhammaanba meelaha ay soo galeen wixii ka dambeeyay xabad joojintii dhaqan gashay 19 January ee 1 March oo ka baxay Netanyahu. wixii ka dambeeyay ciidanka Israa'iil inay ka baxaan markaas kadib laga wada hadlo. iyo qodobka ugu dambeeya oo ah damaanadda. saddexdaas qodob ayaa Xamaas wadataa. وهاجاك وإنه أركض وأنا وحي كسو كرنا أريمهاسي وقتها هاتن وحين أقول بينها دجال كي لبيئة توانك مع الموت كدح السعودي إسرائيل إيران حب ضبع مالي مالنت كده ما يصاب حيسا أول واحد ذي سو قد بيني وربحين كسو عبسن قصارها سيو جاري معتك لوت المعمي مسكحدي يعقلق إسرائيل ومعتك ويزمان أو بربر حب لو سو جاري حد متكمل ورجيسر قلبتك أي واحد صوب النجي warbixin ku aadan qasaaraha soo gaaray iyo weerarka ka dhacay 5 saldhig oo Israa'iil ay leedahay waa saldhigyada ciidanka wari warkan wargeysku wuxuu leeyahay waa la qarinayaa. haddaba warbixin amurahan ku aadan waxa soo jeedinaysa wariyahayaga Nimca Cabdikariin Timacade. gantaalada Iiraan ayaa si toos ah u haleelay 5 saldhig ciidan oo Israa'iil ay leedahay intii lagu guda jiray dagaalkii socday 12 maalmood sida lagu sheegay xogta raadaarka oo aan la shaacin sabab la xiriira faareebka ama diidmada adag ee baahinta taasi oo ay soo saareen militariga Israa'iil. majalada Telegraph oo Ingiriiska ka soo baxday ayaa shaaca ka qaaday in 6 gantaal oo Iiraan ay soo tuurtay ay haleeleen 5 saldhig oo kala duwan oo ciidanka Israa'iil leeyihiin. hase yeeshee maamulka Israa'iil kama aysan hadlin duqeymahaasi lagamana baahin gudaha dalka sabab la xiriira xeerar adag oo militarigu soo saaray kuwaasi oo xakameynaya warbaahinta. balse aqoon-yahano Mareykan ah oo ka tirsan jaamacadda Oregon State kuwaasi oo ku takhasusay adeegsiga xogta raadaarka dayax gacmeedka si loo ogaado burburka hubka ee goobaha dagaalka ayaa xogtaasi la wadaagay wargeyska. xogtan waxay u muuqataa mid sii adkeyn karta dagaalka hadalka ah ee u dhaxeeya labada dhinac ee ku loolamaya cidda guusha buuxda hanatay. warbixinadu waxay muujiyeen in goobaha la burburiyay ay kamid ahaayeen saldhig ciidan oo weyn oo cirka ah, xarunta ururinta sirdoonka iyo xarunta sahayda ciidanka, waxaana intaasi dheer 36 duqeyn oo gantaalo ah oo ka gudbay nidaamka difaaca hawada ee Israa'iil, taasi oo sababtay burbur ballaaran oo soo gaaray dhismayaasha rayidka ah iyo kaabayaasha warshadaha. wargeysku waxa uu xusay in 7 weerar oo lagu qaaday Israa'iil ay beegsadeen xarumo shidaal iyo koronto. burburka qayb kamid ah Machadka Weizmann oo ah xarunta cilmi baarista cilmiyeysan ee caanka ah, burbur xoogan oo soo gaaray xarunta caafimaadka ee jaamacadda Soroka iyo duqeymo lagu beegsaday 7 xaafadood oo si weyn loo degan yahay, taasi oo keentay barakaca in ka badan ilaa 15,000 oo qof oo Israa'iiliyiin ah. walow ay burburtay hanti badan oo rayidku leeyahay, kaliya waxaa la qiray in ilaa 28 qof lagu dilay gudaha Israa'iil, taasi oo tilmaamaysa sida hadalka loo dhigay nidaamka digniinta oo horumarsan iyo adeegsiga goobaha gabaadka iyo sidoo kale qolalka badbaadada oo ay si nidaamsan u adeegsadeen shacabka Israa'iil.
inkasta oo inta badan gantaaladii la qabtay boqolleyda gantaalada hawada Israa'iil ka soo gudbay waxa ay si tartiib ah kor ugu kacisay 8 maalmood ee ugu horeysay ee dagaalkii 12 maalmood socday qobaradu waxay arintaasi u sababeeyeen in la xadiday adeegsiga kaydka gantaalada difaaca iyo hagaajinta farsamada ridista iyo suurtagalnimada ah in Iiraan ay adeegsatay gantaalo casri ah oo awood badan inkasta oo nidaamka difaaca hawada Israa'iil loo qaabeeyay inuu qabto gantaalo noocyo kala duwan leh intii uu dagaalku socday waxa gacan ka geysanaya laba nidaam difaac ee THAAD oo Mareykanku uu leeyahay kuwaasi oo dhulka laga joogto iyo kuwa kale oo badaha laga soo tuuro oo yaalay saldhigyada Mareykanka ee badda cas si kastaba ha ahaatee ila wareedi ayaa warbaahinta u sheegay in weerar gantaalo ah oo ka yimid Iiraan ay haleeleen saldhigyo iyo xarumaha istiraatiijiga ah ee ciidamada Israa'iil kuwaasi oo ilaa maanta aan la shaacin tani waxay abuurtay xaalad dadka aysan u arkin in si sax ah Iiraaniyiintu u beegsadeen bartilmaameedyada iyo baaxadda burburka ay gaarsiiyeen meelo badan Corey Sher oo ah cilmi-baare ka tirsan jaamacadda Oregon State ayaa sheegay in kooxdiisu ay wadaan qiimeyn dhammaystiran oo ku saabsan burburka gantaalada Iiraan iyo Israa'iil isla markaana ay natiijadaasi daabici doonaan muddo 2 toddobaad ah gudahooda falanqaynta xogta majalada Telegraph waxay muujisay nidaamyada difaaca Israa'iil iyo Mareykanka ay si guud uga shaqeeyeen si wanaagsan balse ay u suuragelisay ku dhawaad 16% gantaalo ah inay soo gudbaan maalintii toddobaad ee dagaalka tani waxay la jaan qaadaysaa qiimeyntii hore ee ciidanka oo sheegaysay heerka guul gaaraysa 87%. Mas'uuliyiinta Iiraan iyo warbaahinta dawladda waxay adeegsadeen muuqaalo muujinaya gantaalo jabiyay difaaca hawada ee Israa'iil. Mas'uuliyiin ayaa sheegay in habka ugu waxtarsan ee lagu jabiyo difaaca Israa'iil uu yahay adeegsiga gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn oo isla waqti ah si loo jahwareeriyo nidaamyada difaaca. Generaal Sare Ali Fazli oo ah ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ee loo yaqaano IRGC magacooda ayaa yiri Iiraan waxay ku jirtaa xaaladda difaaca ugu fiican tan iyo kacaanka Islaamiga ah ee 47 sano ka hor waligeed ma aanan gelin diyaar garow heerkan ah oo ka dhan ah diyaar garowga dhanka militariga isku xirnaanta howlgallada iyo niyadda askarta qaybo badan oo kamid ah gantaalada ridada dheer ee Iiraan waxay awood u yeesheen inay ka gudbaan nidaamyada difaaca ee Israa'iil inkastoo Israa'iil ay awood u yeelatay inay weerar ka fuliso guud ahaan dalkaasi isla markaana ay burbur gaarsiisay hoggaanka militariga Iiraan iyo barnaamijkeeda nukliyeerka sargaal Israa'iili ah oo arintan ka hadlaya ayaa yiri Iiraan waxa ay lahayd ilaa 400 oo saldhig oo laga rido gantaalada waxaana burburinay in ka badan 200 oo saldhig waxaana ku qiyaasnay in Iiraan ay dagaalka bilowgiisii lahayd inta u dhaxaysa 2000 ilaa 2500 oo gantaalo oo ah nooca ridada dheer balse waxay hadda si degdeg ah ugu socdaan istiraatiijiyad wax soo saar oo balaaran taasi oo kordhin karta kaydadkooda ilaa 8000 ama xitaa 20000 sanadaha soo socda xogtani waxa ay sii xoojinaysaa tuhunkii laga qabay in Israa'iil dagaalkii socday 12 maalmood ee kala dhaxeeyay Iiraan ay kala kulantay khasaare ka baaxad weyn inta ay baahisay nimcati macade HBN Online TV وهجاج نمعة آد بيوم هالسنتهاي داودي الهاتن وحين نسوق قارني شركة يوجد بسيء برنامج كا أي نكسو قبل قبل يجرني أنا وحين نكسو قاعدنا شركة كدول شركة كبرنامج كا تكسو دعوتين وحين دي هي شركة لياب له هرت برهن برشدة ومدي له وقفله هدي له قفة إيدي سنة سوى ناس بقى له قفة إيدي سنكرا إن وحنا ناس له قصو قد بيو إن أخبارات كله قصو قد بيو إن له قوة الحريره ganacsiga inaad ku gudbisan kartid waxa aad soo saartid ama waxa aad farsamayso iyo danahaaga muhiimka ah haddii dhinaca kale loo rogana xumaato iyo ibtila ayuu leeyahay mararka qaarkoodna sababi kara qoysasku xitaa inay ku kala tagaan haddaba dalka Hindiya waxaa ka dhacday arrin cajiib ah nin iyo ooridiisii ayaa wax isku qabsadeen isticmaalka Instagram-ka gabadhu waxay leedahay waxaan doonay inaan isticmaalo Instagram-ka mana doonay hawsha guriga aad iga mashquuliso isna wuxuu leeyahay bahalkan waad ku aalantay shaqada guriga hadiyeen ee shaqadaas qabo laakiin arrinta la yaab kale waxay ahayd gabadhii waxbay lahayd istoosi waxbay lahayd hagaaji waxay go'aansatay bal inay maalin ka nasato oo markaa bal shaqooyinkii guriga iyo hawlaheedii kale iyo qoyskii wax qaqabato laakiin arrin ibtilaa waa timid laba qof oo kamid ah dadkii ku xirnaa baa ka tagay malaha waxba may soo dhigan maalinta dhowr saacadood
gabadha way carootay oo waxay leedahay laba qof oo ka mid ah dadka igu xirnaa ayaa iga tegey sababtana adiga ugu wacan haye maxaa sameeyaa marka anigu may aniga wax dambaba hay dhihin shaqo iyo hawl waxba hay dirin intaa kuma ekaan baf bay tiri saldhig boolis bay tagtay saldhigga qaabilsan dumarka hindiya wuxuu leeyahay saldhigga boolis oo dalkaasi uu leeyahay kala duwan haweeneydii marka dacway gudbisay oo waxay leedahay ninkaygii baan dacwo ka ah dadkaygii iigu jiray Instagramka haddii aana maalintii laba video ama laba muuqaal aana soo dhigin gaar ahaan kuwa leeyahay reeliska dadka ay kala tagay oo laba qof ba hadda iga tagtay haye dacwadii baa la diiwaan geliyay bal asigan loo yaraalay haddaba aynu eegna sheekadan xiisaha leh oo warbaahinta waddankaasi Hindiya iyo baraha bulshada aad u qabsatay nin 30 jir ah iyo xaaskiisa ayana 30 jir ah waxa la sheegay in dood adag ay dhex martay gobolka Uttar Pradesh ay ku nool yihiin waxa lagu soo waramayaa ninka oo lagu magacaabo Vijayendra in xaaskiisa ay markaasi soo dacweysay iyadoo leh wuxuu iga mashquuliyay hawlahaygii baraha bulshada gabadha niisha ayaa la yiraahdaa weli maalintaas aad bay u carootay baa leeyahay shukumaan ay gacanta ku haysantay toortay ayay weliba guriga waxay si aaday hooyadeed iyo aabaheed halkaan booliskii oo say tagtay booliskii baa loo yeeray ninkii waa la isku yimid maxaa dhacay baa la yiri waxay tiri anigu ninkan wuxuu doonayaa inuu igu mashquuliyo guriga hagaajintiisa iyo wax dhaqitaan iyo nadaafad aniguna waxay tiri waxay keentay taasi inaan waqti u waayo in labadeeda muuqaal ee maalintii aan geli jiray Instagramka aan waayo war ileen anaga ayaab aragnay waqti aan waayo maxaa dhacay marka saraakiishii iyo mas'uuliyiintii saldhigga booliska arrintii way dhex galeen waxa la yiri guurka ka muhiimsan waxa walba bal horta isdajiye oo wax uu ku heshiye laakiin mar kastaba guriga iyo qoyska iyo nolosha ka muhiimsan waxyaalahan kale adigu taladii way qaateen wala soo heshiye gurigii baa lagu soo laabtay laakiin maxaa dhacay ninka marba hadii dacwo laga gudbiyay shaqadiisii buu waayay hadana shaqadii uu ka shaqeyn jiray buu waayay hadda waxa la yiri marka ninkii dhibaatada haysta waxay noqotay inuu shaqo kala doono marka social media dhibkiisu leeyahay laakiin waxa haboon in si aqli leh looga fakaro guurkan waa muhiim marka aadna looga taxadiro dabcan nolosheenu kamid yahay xilligan la joogo xilli aan casri waxa la yiraahdaa social media iyo baraha bulshada iyo teknolojiyadan dhibkeeda ay leedahay laakiin wax walba waxay u baahan tahay isfaham in lagu dayo annaguna kuma sii jirno waa laga yaabaa dicaanaha geel lagu jiro inay tahay arrinta furka in la tuuro marka bardeganaanshaha lagu dayo arrintaas inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir barnaamijyadan aan soo gudbino iyo sheekada ugu dambeysana ra'yigaaga nagala wadaag xagga hoose ee barnaamijka qaybta fariimaha nabadgelyo internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah American International High School iyo faraca Nairobi haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso oo aqoonta kamaal American International High School American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaareynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare waxa uu iskuulkana wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda